dhammaan mudanayaal iyo marwooyinba dadweynaha reer ceerigaabo ee sharafta badan ee sida qiimaha weyn leh noo soo dhoweeyey waxaan leeyahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar labaad reer ceerigaabo waxaa saaka ii caddaatay inay awalba waan maqli jiray waana aaminsanaa laakiin haddii inuu shaki igaga jirayna way ii caddaatay inay dadka ka ilbaxsan yihiin ayaan saaka anigu yaqiinsaday waxaan soo marray wafdigii guddoomiyaha xisbiga kulmiye hoggaaminayey ee taageerayaashii xisbiga kulmiye soo dhoweeyeen ayaannu ahayn si laxaadlaa noo soo dhowayseen waa idinka mahadnaqaynaa waxaan magaalada ku soo marray wafdigii guddoomiyaha xisbiga waddani oo isaguna soo beegan galabta taageerayaashii u diyaargaroobayay inay soo dhoweeyaan waxaa in badan ishaydu qabanaysay taageerayaashaasoo isku dhafan oo calamo kala duwan wata oo aan isdanqaabayn isku xanaaqayn isna maagayn markay halkaa gaadho dimuqraadiyaddu waa ilbaxnimo iyo bisayl aad iyo aad baan idinku bogaadinaynaa haddii iyadoo xilligan wafdigii xisbiga kulmiye uu marayey haddii ay dhallinyaro kale soo baxday oo aan sax ahayn in la abaabulo xilligan inaad dul qaadateen oo aydaan cunfi kaga jawaabin waxaanu arkaa inay bisayl weynahay waxaynu u baahannahay waxaynu nahay bulsho walaalaa oo isku mid ah waa la tartamayaa xisbiyada waxaynu u samaysannay inaynu tartanno hoggaanka dalku ku yimaado hase yeeshee col ma nihin xisbiyadu col ma aha cadowlaysu ma aha si caafimaad qabtaynu u tartamaynaa cidda badisana waa la bogaadinayaa waa lagu hambalyaynayaa waana loo tanaasulayaa xilkana waa loo tirinayaa waa waxa dunida horumartay ka horumartay waa waxa ummadaha qayrkeena ee asaaggeena ay wabeel ku gaadheen afrika waa waxa baabi'iyey isu tanaasul-la'aanta siyaasadda in lagu kala adkaadaa ceeb ma aha ninka marka laga adkaado inuu qaato guuldarrada waa geesinimo taariikhdana meel badan buu ka galaa arrintaa reer ceergaabo waa ku bogaadinayaa intaa waxa dheer waxaannu u soconnay maanta olole ma wadno waxaannu wadnaa guubaabo in kaadhkii codbixiyaasha la qaato kaadhkii codbixinta doorashada madaxtooyada in la qaato kaadhkaasi saamayn buu ku leeyahay noloshiinna hadday tahay dhaqaalaha hadday tahay horumarka hadday tahay siyaasadda arrimaha bulshada intaba uu ku leeyahay gobol weliba tirakoobkiisa kaadhka qaatay ayaa final liiska la soo saaraya sanaag waa dhab marka juqraafi ahaan la eego dalka somalilan waa boqolkiiba 8.30 weeye iyadoo intaa leeg dhulkeedu kala fog yahay buuro iyo qorfo badani ku jiro waxaan dareensanahay bulshada reer sanaag waa dad aad u fara badan dalku ma madhna dadkuna wuu buuxaa hase yeeshee diiwaangelintii waxaa gobolkan iska diiwaangeliyey marka la eego tiradiisii tiro ka yar haddii taasi ay sidaa ahayd kaadh qaadashaduna hadday sii yaraato oo duruufaha dabiicigiiyo abaaraha ay iyaguna sii ciilaan arrintaasi waa arrin dhaawac leh waa arrin saamayn ku yeelan doonta saamiga reer sanaag ee boqolkiiba 8.30 ayay ku iman doontaa meeshay doonaan ha u codeeyeen waxaannu leennahay dadweynaha reer sanaag qaata kaadhka oo muxuu ahayey isgubaabiya oo si wanaagsan u nabadgelyaa u qaata taa intaasa kale qodobka labaad waxa weeye xukuumadda xisbiga kulmiye ee madaxweyne siilaanya hoggaaminayo iyo reer sanaag saaka laysu sheegi maayo malaa qolooyinka cusub baa reer sanaag iska dhaadhicin doona bay la tahay qolooyinka xaashiyaha cadcad wataa ayaa saaka waraaqaha wax ku qoraya annagu uma baahni inaan waraaqa wax ku qorro sanaag waxay ka mid ahayd gobolladii xisbiga kulmiye laga taageeri jiray waxay ka mid ahayd gobolladii doorashooyinkii kala duwanaa oo dhan uu ku hormari jiray kulmiye wuu abaalguday reer sanaag maanta ciilkaambii maayaan taageerayaashii kulmiye iyo kuwii naga codayn jiray intuba kulmiye maanta canaanana maayaan iskuna ciilkaambii maayaan waxaynay ummad yar dhaqaalo yar
waxa ina soo galay xeerada inaynu wada gelino si siman loo qaybsadaa waajiba maanu xaglin manaanu xaqsoor xumayn waxaa laga qabtay mashaariic aad u fara badan malaa dadku wuu ilaawaa muddaduna 7 sanay maraysaa wax badan baanu gobolkan ka qabannay malihin baahidii reer Sanaag baanu daboolnay waxaanu qaraynaa in qabyo jirto in baahi badan jirto waxaanu saleenahay 7 sano iyo waxaanu qabannay waa wax weyn oo aan hagrasho ku jirin beenaana markhaatigiisu fogeeyaa Sanaag ma cusba ingiriis baa soo gumaysto joogay dawladdii rayidka Soomaaliya markaynu ka mid ahayna 9 sano joogtay ka soo talisay waxa ka talisay dawladdii Maxamed Siyaad Barre 20 sano waa 30 sano intaynu xorriyadda qaadanay 19 sano in Soomaaliland ahayn oo xukuumadda naga horreeyay ka talinayeen oogee waa 49 qalin iyo buug soo qaata aqoon-yahanada reer Sanaagow waxaanu qabannay hadday ka badan waayaan 49 sano wixii dawladahaasi qabteen kulmiye been buu idin sheegay waxaanu qabannay 70 iskuul oo hoose dhaxaanu gobolkan ka dhisnay waxa laga yaabaa tuulanaanay u warhayn maalin dhow baanu soo dayn doonaa liisaskaas oo dhan 10 iskuul oo dugsi sare baanu ka dhisnay 49 sano lagama dhisin intaa lagama dhisin waa cadaynaynaa waxaanu ka dhisnay ka qodnay 17 ceel oo maanta laga cabo ayaanu gobolkan ka qodnay 30 ceelna waanu ka dayactirnay waxaanu ka qodnay 2 dhaam oo maanta socda 3 dhaam bay ahaayeen mid baa dib u dhacay kulaal iyo meesha la yiraahdo fiqi fuliye 2 dhaam baa ka socda waxaanu halkan ka wadnaa cusbitaalkii weynaa ee magaalada Ceergaabo oo lacag 3 milyan ku baxayso oo la dhisayo gacanta lagu hayo oo dhawaan dhamaanaya waxaanu gacanta lagu hayaa dugsigii boardinka ahaa ee dayaxa ayaa gacanta lagu hayaa waxaanu ka hirgelinay oo gacanta lagu hayaa magaalada degmooyinkii xeebaha caanka kalluumaysiga ku ahaa in mujtamaca gobolka Sanaag oo caan ku ah kalluumaysiga in la dhiirigeliyo oo dib loo soo celiyo wax soo saarkii badda iyo khayraadka magaalada Laas Qoray Mayd iyo Xiis iyo Onqor waxaanu qorshe u dhignay in qaboojiyaal dadka kalluumaysatada dhiirigeliya markay kalluunka la soo baxaan aanu ka qudhmin ee ay ku kaydiyaan si ay u iibgeeyaan ayaanu gacanta lagu hayaa waxaa magaalada Ceergaabo aad ogtihiin siday ahayd 49 sano hal wado laamiya may lahayn 15 kilomitir ayaa maanta ka samaysan yaa keenay macalkay ka soo dhacday miyaan kulmiye keenin wadadii dheerayda Ceergaabo laga waramayay 150 kilomitir baa maanta laamiya 130 waxa weeye waa carrakaawo adag haddii 12 saacadood burco lagu tegi jiray 4 saacadood baa maanta lagu tegaya miyaanay hayn abaalgud uu madaxweyne Siilaanyo iyo xukuumaddiisa iyo xisbiga kulmiye u abaalgudeen shacbiga Sanaag miyaanay hayn qaab ku maqan waxaa jira mashaariic aad u fara badan waxaanu degmooyinka ka hirgelinay hadda xusimayno waxaasi waxay ahayd himilo iyo aragti qoto dheer waxa iska yimi maaha hal abuur bay ku timi kulmiye wuxuu leeyahay muddo xileedkii hore hadduu waxaa qabtay wuxuu qaban doonaa muddada dambe ee Muuse Biixi Cabdi haddii alla ku guuleeyo kuwa intaa iyo labalaabkeed waxa intaa dheer bulshada reer Sanaag waxay bulsho aan isu tallaabin dib heshiisiin baanu ka samaynay nabad baanu ka samaynay beenaale markhaatigiisu fogeeyaa waxaanu ka soo baxnay Laascaanood xudun baanu soo marray awr bogays baanu soo marray fiqir buuriyaanu soo marray waa 7 sano ka hor halka miyaa la mari jiray miyay qaranka ka mid ahaayeen kulmiye dib heshiisiin buu sameeyay mana ogolin beel ku duusha mana ogolin beel laysa dhacdooyinkii kale ka dhacayna gacantaanu ku haynaa waxaanu leenahay waxaanu qabanay ciidina dafiri kalmayso waa cadceedda aan qoraxda aan gacantayda aan lagu qarin karin ayuu ka dhigay annagu markaa reer Sanaag isbari mayno waxaana filayaa reer Sanaagna inaanay maanta isku ciilkaambeyn codkoodii ay kulmiye siiyeen kuwii naga codeeyeyna iyagana